saxaafadda madaxa bannaan ee dalka jamhuuriyadda somalilan iyo saxaafadda dawligaaba waxaan maanta halkan isugu kin yeedhay inaan idinka soo gudbiyo warmurtiyeed ku saabsan ama xambaarsan xaaladihii ugu dambeeyey ee deegaanka tukaraq iyo nabadda ay dalka jamhuuriyadda somalilan mar walba diyaarka ula tahay guud ahaan beesha caalamka iyo mandaqada geeska africa sidaad ka wada warqabtaan madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi 28 guuradii ka soo wareegtay gooni istaaga dalka jamhuuriyadda somalilan ee madax bannaanida qarankan 18 May wuxuu fagaarihii lagu xuseeyey uu madaxweynuhu ka cadeeyay in dalka jamhuuriyadda somalilan uu diyaar u leeyahay nabadgelyo buuxda cid kasta isla markaana xukuumadda somalilan ay sii deynayso maxaabiistii lagu soo qabtay dagaalkii lagu soo qaaday deegaanka tukaraq ee gudaha dalka jamhuuriyadda somalilan ay ka dambeeyeen maamulka farmaajo maxaabiistaas oo ay tiradoodu dhammayd 14 maxbuus magacyadooduna ay kala ahaayeen kow cabdinaasir cismaan cali cabdinuur maxamed cabdulle maxamed siciid yuusuf cali faarax aadan maxamed cabdi caynab cabdixaafid cabdulaahi xalane xuseen siciid warsame cabdinaasir maxamed nuur maxamed abshir aadan ibraahim xasan salaad axmed maxamed axmed siciid ducaale cali mahad nuur cali faarax maxamed cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu maanta uu ku saamaxay wareegta madaxweynuhu markuu arkay dastuurka jamhuuriyadda somalilan qodobka 9aad fikradiisa 5aad markuu arkay qoraalka xeeralyaha guud ee ciidamada qaranka ee ku taariikhaysan 26 bisha 5aad 2019 markuu tixgeliyey nabadgelyada guud ee gobolka geeska afrika iyo bisha barakaysan ee Ramadaan markuu la tashaday cidda ay qusayso wuxuu go'aansaday in laga bilaabo taariikhda maanta uu saamaxaad u fidiyo maxaabiista dagaal ee maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo qabteen dagaalkii tukaraq kuwaas oo magacyadoodu kala ahaayeen kuwaan idin xaadiray tiradooduna ay dhammayd 14 maxbuus tallaabadaasi waxay muujinaysaa Somaliland inay mudnaan weyn siinayso amniga iyo nabadda xukuumadda Somaliland waxa ka go'an ahmiyadda weyn ay nabadgelyadu leedahay taasoo beesha caalamka iyo mandaqada geeska Afrika u cadeynaysa inay Somaliland diyaar u tahay xoojinta nabadda haddaba Somaliland waxay u aragtaa shaqaaqooyinka maamul goboleedka Soomaaliya ee Puntland uu ku wado dawladda Somaliland inuu hurinayo maamulka farmaajo waxaynu ognahay dabka ka holcaya Kismaayo Galmudug Hirshabeelle Puntland iyo Muqdisho inuu yahay colaadii cadaawad uu dabada ka riixayo maamulka farmaajo sidaa daraadeedna jamhuuriyadda Somaliland xad waxay la leedahay oo kaliya maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya haddaba wixii khilaaf ka dhaca xadka waxay Somaliland diyaar u tahay in lagu xalliyo nabad iyo isafgarad buuxa lagana fogaado dhibaatada laga soo maleegayo maamulka farmaajo ugu dambeyn xukuumadda Somaliland iyadoo danaynaysa nabad ku noolaanshaha iyo daris wanaaga waxay soo jeedinaysaa in duruufaha adag ee ku gedaaman mandaqada geeska Afrika ee leh dhaqaale xumada faqriga abaaraha iyo adeegii asaasiga ah hoos u dhacay la iska kaashado lagana waantoobo dagaallo iyo colaado hor leh oo dib loogu celiyo guud ahaan mandaqada geeska Afrika aad iyo aad baad u mahadsantihiin